dadyo badan waxa ku adkaataa in ay fahmaan naftooda inay fahmaan waxa weeyaan qiimaha ay leeyihiin iyo waliba sidoo kale xirfadahooga taas oo qofka ka dhigta qof dareema inaanu macna u lahayn nolosha ama aanu wax qiimaaba lahayn sababta ugu weyn xaaladaha noocan oo kale qofku ula kulmaa waa in qofka ogaalkiisa shakhsiyeed iyo waqtiga uu naftiisa la qaadanayo iyo xisaabinayo iyo wax weeyaan isbarashada uu isagu isbaranaya ay meesha ka baxdo isla waqtiga aad bilowdo xaaladaha noocan oo kale inaana darsin oonad daras ku sameeynin oonad dhinacyo badan ka eegin oonad naftaada baran oonad xirfadahaaga waxa weeyaan ururin shakhsiyadaadana si fiican u baranin waxa kugu dhacaysa iswaa shakhsiyad inaad isweydo inaad value-gaaga iyo qiyamkaaga iyo waxa weeyaan qiimahaaga aad garan weydo in waxa doonaysi waxa diidaysaba ay noqdaan kuwa aanad garan kareynin in jawreer fara badan kugu dhaco hadaba xaaladda noocana dhalinyaro fara badan baa la nool zamankan aynu joogno si ay arinta waxa liyaana waxa ugu muhiimsan ee qofku sameyn karaa waa inuu waqti naftiisa la qaato oo isagu isqiimeeyo oo uu si fiican isku barto waayo wax laga yaabo qofkii isagoo skillskiisi aad u sareeyaan ama xirfadihii uu lahaa iyo aqoontii uu lahaaba haddana ay aad u adkaato in qiimihii u goynayay shaygaas aanu qofkaasi halkeedii ama yani barteedii aanu joogin muhiimadda ugu weyn ee ay tahay inaynu ku dadaalana waxa weeyaan markastoo naftaada waqti siiso oo markastoo isbaran karayso markastoo xisaabiso oo markastoo garan karayso halka aad joogto iyo halkay tahay inaad tagto iyo waxa ka maqanba qodobka labaad wuxuu noqonayaa inuu qofku ku dadaalo kartidiisa inuu xoojiyo kartidaadu maxay tahay kartidaadu waa awood xamil ee aad u leedahay inaad hawl adag qabato una bareedo waxaana saldhigo kartida laftigeeda kalsoonida uu qofku ku qabo shayga uu qabanayo ama hawlaha haato ama waxbarasho haato ama shaqo la dhigmaha haatee iyo waliba sidoo kale in uu qofku han uu ka leeyahay shaygaas oo hadii aanad waxad qabanaysa aanad han ka lahayn ama ujeed ka lahayn oo ujeedku ka lunsan yahay aad u fududaan sanad kan iyo jabto sidibto yani haad isku dhiibto oo aad shayga iska badiyaysa marka waxa aad muhiim u ah inaad kartidaada xoojiso adigoo ku xoojinay kalsoonidaada iyo hadafkii hanka aad leedahay aad ka leedahay shayga inaad ka gaadho oo macnaheedu tahay inaad ka gun gaadho halkee doonaysa shaygan inaad ka gaadho oo ay ka gun gaadhistaasi waxay laftigeeda ku saaraysaa sabirkaad u sabraysidii adkeysiga aad yeelanayso tan oo kaabaysa waxa weeyaan kartidaadii aad hawshaas ku qabanaysay qodobadan waa qodobo si fudud ku caawin karaya haddii aad tahay qof xaaladaha noocan oo kale la nool waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen qodobadan sidoo kale aydan ka iloobin asxaabtiina oo gaarsiisaan si uga faa'iideystaan